wararka ka imanaya dalka Burkina Faso ayaa sheegaya inay si laba xaasideen ololaha ay ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ku dalbanayaan in lagu garab siiyo howlgalka lagaga soo horjeedo kacdoonka ay wadaan islaamiyiinta dalkaasi oo xarka goostay kuna faafaya guud ahaan magaalooyinka dalka Burkina Faso. ciidamada ayaa dalabkan soo jeediyay wax yar kadib markii rasaastu isqooratay saldhigyo ku yaala magaalada madaxda dalkaasi ee Ouagadougou iyo tuulooyin kale oo ku yaala waqooyiga dalkaasi. korneelada askarta dalkaasi ayaa u toogahaya ama doonaya in wax laga bedelo hoggaanka iyo saraakiisha military iyada oo lagu kaabayo in tababar loo furo camaariyada luxosa kuwaasoo iska hormadoobeeya nimanka jihaadoonka ee u haliilaya inay haansadaan talada dalkaasi. waxay sidoo kale codsadeen in la kordhiyo cuntada la siiyo daryeel wanaagsan oo loo fidiyo ciidamada dhaawacma iyo weliba in sidoo kale taageero dheeraada la siiyo qoysaska ciidamada ka qurbaxa dagaalka lagaga horjeedo fallaagada. si kastoo ahaataba xukuumadda talada haysa ee dalka Burkina Faso ayaa ka hadashay waxa ka jira inuu halka ka dhacay afgambi la doonayay in gargaarka lagu weydaariyo madaxweynaha dalkaasi. waxay sheegtay in ciidamada dalkaasi ay kacdoon sameeyeen balse aanay hadda talada la wareegin. dowladda ayaa qiratay rasaas balse waxay sheegtay militarigu aysan la wareegin awoodda dalkaasi. haddii aynu isu qabanno sidan iyo dalka aynu jaarkanahay ee Itoobiya, wararka laga soo dalqaminayo waqooyiga dalkaasi ayaa sheegaya ama sarta ka dilaaciyay inay duulaanka magdambaysa ku eekayn doonaan ciidamada qalabka sida ee dalkaasi magaalada Maqale ee magaalada madaxda reeraha Tigray. afayeen dhira kormaareynayay buuraha dhaadheer ee waqooyiga dalkaasi ayaa dhayda ka cadeeyay inuu kan yahay weerarhankaagii ugu dambeeyay ee uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha dalkaasi, kaasoo lagu soo gabagabayn doono ama hilfaha loogu laabayo fallaagada iyo gaarayuunta ka alaakhaysta. wuxuu sheegay afayeenkani inay duulaanka ka nabadgeli doonaan oo keliya cidda intaanu weerarku bilaamin gacmaha taagta ama calanka cad lusha, sidoo kalena ku dhawaaqda inaanay dagaalkaasi ka qaybgeli doonin. intaa wuxuu ku daray afayeenkani in maxasta maatada waayeelka iyo raqayatiinka Maqale ku sugan aan waxba loo dhimi doonin. dhinaca kale dadka wararka hunaafada ayaa sheegaya in duulaankan ay soo dadejisay ismaandhaaf culus oo u dhexeeya qoomiyadaha Amxaarada iyo dadka kale ee dalka Itoobiya, gaar ahaan reerihii ooda loo rogay ee Tigray. xabashida ayaa hibanaysa in duulaankii u dambeeyay loo geystay khasaare taagle, isla jeerkaasna dhabarka lagaga jabiyey halka laga muhoobiyey deegaamo ay TPLF taabka ka buuxsatay. sidoo kale waxaa la arkayay janan ka mid ah oo ka soo jeeda beelaha xabuusha, kaasoo sheegay inay gelayaan ama amar la'aan waqooyiga Itoobiya. waxaa la arkayay isaga oo abaabulaya reeraha xabuusho la yidhi kadib markii uu degta sudhay daba jaariya iyo miskeeti ay dheer tahay calankii dhergiga ee afka goostay. wuxuu sheegay korneelkani inuu dalka dib loogu soo celin doono calankii kaniisadaha ee boqolaalka sano lagu soo xukumayay dalka Itoobiya. haddaba iyadoo taasi laga duulayo ama laga shidaal qaadanayo, waxa uu ra'iisul wasaare Abiy ku dhawaaqay in la isugu yimaado wuxuu ku sheegay wadatashi ama shir qaran, kaasoo reeraha xabuushana ay ganafka ku dhufteen, kuwaasoo soo dedejiyay in dagaal labaad lagu qaado Maqale si danaha xabuusho loo fuliyo. arrintaasi waxay soo duduucday in Abiy Axmed xaalkiisu noqdo nin faras dabadii ka degay meel uga toolmoon buu waayey, waxayna ku kalaftay inuu dantii waariyo ama hariyo. dhinaca ceelka Laascaanood, duqa degmadaasi oo ka soo jeeda reer daraawiisheed oo lagu yaqaano halgankii lala galay sancadaalihii mar wax furay Somaliland, isla jeerkaasna ka hadlayay ceelka Laaska la yidhi ayaa maanta dadka dib u xasuusiyeen inay daraawiishtu isku nabnamin iskuna dhedhejin reeraha Faranji ee Britain. maayarka ayaa sidii daraawiishtu dhulka u jeeday raggii koofil ku jiray, wuxuu isaguna maanta mid la mid ah digada iyo dambaska ama cardaaduqaha ka dhigay afka gaalaad ee Ingiriiska. wuxuu halkaa dadka fariin uga diray inaanu afkan u dhalan oo uu yahay darwiish dhalay oo aan dan ka lahayn af kale iska raadin, luqad kale iska doondoon, balse uu ku caanamaalay afkiisa Soomaaliga. dhinaca kale waxaa lagu arkayay baraha bulshada ee wararka laga dhuugaalo dad ku aflagaadeynaya duqa degmada Laascaanood inuu jajabiyey afka qalaad ee Ingiriiska, waana uu ku saxsan yahay inuu dhulka la dhaco. annagu haddaanu nahay bahda TRTV waxaanu ku bogaadinaynaa inaanu baranba, intaasina ay ku ahayd gef uu ka galay afka Soomaaliga. tusaale, haddii aad afkaaga hooyo kula hadasho dalalka kale, waxay soo dedejinaysaa in afkaaga la barto oo la turjumo ama la falaguro. dhinaca kale waxaan dadka xasuusinaynaa weli ma aragtay qof ajaanib ah oo afka Soomaaliga sidii saxda ahayd ugu dibinjaaqaya. haddaad aragtay muxuu kaga duwan yahay in duqa Laascaanood dadka afkooda mooye afafka kale ku mergada. The people of District Laascaanood
So region and fully support the Somaliland government recommendation support and thank you to the other. dhinaca kale xildhibaan cabdiqaadir maxamed indhaindho oo qolyaha wararka goofaadhiya maalintii shalay ugu diminjaaqay ceelka hargeysa ayaa sheegay inay gabadh siin doonaan xildhibaanka la dhaho Gavin Williamson oo dhowaan dirgadda baarlamaanka Britain ee magaceeda la dhaho Westminster u soo dusiyey mooshin loogu faarumaysan rabay in wax aqoonsi u eg lagu yuubo Somaliland oo 30 sano xaalkeedu ahaa dhaqaaq joogsi kaasoo ay ugu mucuurtaysan tahay uguna jeel qabto madax bannaane ay kaga faramudhsato dalweynihii la isku odhan jiray Soomaali weyn wuxuu intaa ku daray ninkaasi uu ku haboon yahay inuu nala xidido oo welibana la siiyo gashaanti madow dhalaal ah oo cirid duxula leh sidoo kale dhexdu madag tahay ugu dambeyntii wararka kale ee dheeraadka ah ee aanu idinka hayno magaalada Hargeysa waxaa ka mid ah xukuumadda Faransiiska ee Britain ayaa la sheegay waa iyaga iyo allahooda inay danjiro cusub u soo wakiilatay inuu abbaan uga noqdo waabta doonyaqaada dawladda Ingiriiska ay ku leedahay magaalada Hargeysa warku wuxuu intaa ku darayaa inaanu danjirahani Loxoska ay hoos joogi doonin safaaradda Britain ee magaalada Muqdisho kaasoo la sheegay inuu ku kooban yahay ceelka Hargeysa oo kaliya waxaa la sheegay inay meesha ka bixi doonto hadalkii lagu celcelin jiray ee ahaa safiirka Somaliland iyo Soomaaliya ee dalka Britain sidan waxaa sheegay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dhaqdar Ciise Kayd Maxamuud oo maanta ku soo dhaweeyay Hargeysa afadan danjiraha noqon doonta oo magaceeda lagu sheegay Lucy Walker Somaliland iyo Britain ayaa in dhawaalaba isku soo dhawaanayay taasna waxaa la sheegay inuu soo dadajiyay dagaalka diblomaasiga u dhaxeeya Danbar Shiinaha iyo reer Bogox kaasoo salka ku haya marinbiyoodka badda cas oo noqotay bogcad muhiimadeeda u leh dunida Shiinaha ayaa xiriir la qaatay Itoobiya iyo Jamhuuriyadda aynu jaarka nahay Djibouti kuwaasi oo iyadu kala rogan tahay Somaliland waxaana uu deymo fara badan candhada u geliyay dalalkaasi waxaa warku intaa ku daraya inay Somaliland dan uga baydhay caanteynaha faraha oo Shiinuhu ka xalaashado khayraadka dalka Toyota bedelkeedana Somaliland u gacan haadisay Jamhuuriyadda Taiwan oo ay Beijing yihiin curdahood go'ay